waxaan jeclahay walaalkii Cabdulqaadir xogayihii hore inaan uga mahadnaqo dadaalka 5 sano ku siman runtii ee uu soo galiyay dadkiisa iyo dalkiisa aad iyo aad baan uga mahad celinayaa haddaan idhaan midh loo taabto waqti badan bay naga qaadan doontaa waxaan jeclahay si guud inaan ugu mahad celiyo waxaan runtii jeclahay inaan soo dhaweeyo Cabdalla Boqor oo runtii ay isaguna nin wax barto aqoonyahana oon rajaynayo inuu wax weyn ku soo kordhin doono hayaanka loogu jiro sidii loo soo horumarin lahaa adeega bulshada iyo magaaladan sidii loo dhisi lahaa oo noqon lahayd magaalad ka fiican maanta ay tahay waxaan runtii aad iyo aad ugu mahad celinayaa shaqaalaweynaha tirada badan ee adeega qiimaha badan u soo adeegayay qaarkood 40 sano iyo 50 sano ka badan bay ka shaqeynayeen iyagana waan mahadinayaa waxaan jeclahay inta marka laga tago insha Allah ta'ala injineer Cabdulqaadir waa darkaseeno wax qabadkiisii buu ka waramay waliba waxaan aaminsanahay haddii nimankii ka horeeyay fursad ay siin lahaayeen inuu inta in ka badan shaqeyn lahaa ayaan aaminsanahay waxaan ballan qaadayaa inaan fursad siin doono Cabdalle nin dhalinyaro firfircoon si uu magaalada uga shaqeyn lahaa oo si horumarin lahaa inta marka laga tago waxaan jeclahay inaan midhiyo kelmad ka idhaahdo madal siyaasi ma ahayn mar haddii kelmad yar kooban la yiraahdo laba kelmadood kooban ma oranayaa ugu horeyn waxaan jeclahay inuu u horeysiiyo chief runtii Bayb Cabdi Ciile aad buu noo tusaaleeyay taladiisii runtii waanu qaadanay odayaashii kale tirada badnaa qiimaha badnaaba waxaan jeclahay in yar oo ogeynana saxo arrimaha dhulka ee runtii kala iibsiga uu ka hadlay ee yaraaday waxay ahaayeen dantii guud ee la kala iibin jiro tiina waan joojiyay danta guud iib ma aha waan ku celinaya maalinta hore kama ka sheegay dantii guud waxaan u siinay ciidanka qaranka oo dadka ugu mudana waxaanu siinay 120 balood oo iyagu leeyihiin oo laga dhisayo 300 oo guri haddii sheeka barale lagu wada joogi jiray runba lagu wada oo ay haystaan markaa agaasimaha hawlaha guud inuu soo diyaariyo 200 balood oo shaqaalaha dawladdu ay leeyihiin oo diyaara taana waa ugu bishaareynaa insha Allah ta'ala waxaan jeclahay nimankii maayarkii hore Axmed Ciise oo ka hadlay iyo halka ay dhageysta dadka qiimaha leh ee halkan fadhiyo waxaan jeclahay in yar u fiirsadaan maalintii xilkaan la wareegayay Gabiley waxay ahayd Soomaaliland maqal burca 3 milyan oo dollar oo deyn la wareejiyay ما دكتي قبل $2 مليون دين إلا وريتي ما دكتي ما هو بيدين أنا هذه الشيء لبادين ما يرى حلك لك الوريجي كرسي يوم يكليب سدين وحلقوه الشيء دين $2 مليون ده وصل له ليه هاي إلا قريو أحمد عيسى وحلقوه وريتي شن بقول كونه $1 لعقت ترى أنت على الأجله هالشيء سبيه هيدو ساسا له وريتي waxaan jeclahay Cabdalle maanta in halkan ku wareejiyo deynta rasmiga ee Gabiley lagu leeyahay agaasimaha maaliyaddu halkan ka sheegay oo lacag $2 milyan ku dhow waliba waxaan ogeyn deymo badan oo aan anaga soo gaarin haddaba waxaan halkan ka sheegay oo jeclahay inaan cadeeyo Cabdalle culayskaas degmada haysta kaasaan maareynay dhaqaalihii isagoo 8% hoos u dhacay kastamkii haddana mushahar lama yeelan biil lama yeelan leyd shidaal lama yeelan bil kaliya lama yeelan waxaan halkan ka sheegaynaa in aan maalin kaliya mushaharna baaqan biilana nagu baaqan waxaan jeclahay inaan xuso mashaariicda kuwa socda xogayaha sheegay mashaariic tira badan baa imaga socda laba wada ka mid yihiin garoonkii bari baa la bilaabayaa $600 ku baxaya mashaariic tira badan baa socda waxaan jeclahay inaan xuso warnimayahow dawladdan hoose iyo dadkani ma geeyaan
in been iyo propaganda lagu dhaqo xaqiiq baynu ku wada hadlanaa ciddii dood haysaa fagaaraha laabareeriga ayaanu si toos ugu wada hadli doonaa waxaan jeclahay haddii shaqaalaha ciidi mushaharka ka amaahatay iyagaa ka amaahdo 3 bilood oo horaa la lahaa shaqaaluhu way leeyihiin taana way loognahay shaqaaluhu sidoo ahaayeen ugu nimid waxa la waxaanu ka bedelay ma jirto qof waloo shaqaaleena uu soo shaqo tagaa waxaan jecelahay nimankii saxaafadiina halka way fadhidaan labadii maayeer halkan ku wareejiyay iyagoo dakhligoodu boqolkiiba 50 iga badnaa wixii soo gali jiray ayay 2 milyan oo deyna wareejiyeen fagaaraha ha yimaadaan dadkuna su'aalaha weydiiyaan saxaafaduna maraga ka qaato ninkii wax taray deegaankan marageeda shacabka furi doona waxaan runtii la wareegnay magaalo dhaqaalaheedu burburay 14 sano mashaariicda la fuliyay iyadoo dhaqaaluhu maalin kaliya aanu dhismin boqolkiiba 20 ma aha ciddii dood ka qabtaa fagaaraha ha timaado asoo ka haysata saxaafadeeda cidday wax ku tuumasan halka keento waxaan idin sheegayaa maanta waxaan halkan u joognaa aniga iyo Cabdalle iyo ragaa kale dawladda hoose inaan dhaqaalaha kobcino deynta culus ee degmada haysatan inaan ka saarno ciidamada qaranka ee kala duwan nooc walba yihiin iyo shaqaalaha dawladuna inay helaan degsiimo ay leeyihiin magaaladan runtii waxaan u furnay maalgelin inaan ku soo dhaweyno dad kala duwan oo wanaagsan si dhaqaaluhu u kobco waxaan culayska u weysaaranaa oo hadda gacanta ku haynaa si magaaladan dhaqaalaheedu u kobci lahaa kirooyinka iyo culaysyada dadka haysana loo dhimi lahaa ujeedadaan oo dhismayaasha dawladda u dhisano ee ciidanka qaranka u siinay waxa weeye waa in la dhimaa kirada qaaliga ee dadka culayska ku ah marka guriyo badan la dhiso waxa hoos u dhacaya kirooyinka jabaya nolosha magaalada iyo waxa iswaafaqi doona kirooyinka iyo nolosha ascaarta dhammaantiin waan ugu mahad celinayaa ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo agaasimaha guud ee beeraha oo runtii aad iyo aad si qiimo leh ula shaqeeyay gabilay aad iyo aad baan ugu amaanayaa mashruucii qiimaha badnaa ee 220 milyan ahaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa isaga madaxweynaha qaranka xukuumadeena waa xukuumad u helan gabilay waxaan ku soo gunaanadayaa maragu waa shacabka sanadka maanta socda bisha 6 intaanay gaarin kulmiye 14 sano wuxuu halkan ka qabtay ha soo bandhigo aan isku nimaadno fagaaraha wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh